shirkii laba toddobaad ka hor ku dhex maray Soomaaliya iyo Somaliland dalka Djibouti waxa uu ahaa shirkii sideedaad ee ay si toos ah isku soo hor fariistaan mas'uuliyiinta labada dhinac 8 sano ee la soo dhaafay. Shirkii ugu horeeyay ayaa ka dhacay Chevening oo ku taala duleedka magaalada London 20 iyo 21 bishii Juun sanadkii 2012. toddobaad kadibna waxaa madaxweynayaasha labada dhinac Shariif Sheekh Axmed iyo Axmed Maxamed Siilaanyo ay ku kulmeen magaalada Dubai Juun 28keedii. kulankii kaas xigay waxa uu ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga bishii Abriil 13keedii 2013. waxaana uu ahaa heer madaxweyne oo waxaa kulan yeeshay madaxweynayaashii Soomaaliya iyo Somaliland ee xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Siilaanyo. laba jeer oo kalena labada dhinac waxay isku arkeen magaalada Istanbul. kulamadaasi oo kala dhacay 7 ilaa 9 Juulaay 2013 iyo 16 ilaa 19 January 2014. kulanka lixaad oo isna ahaa heer madaxweyne oo ay mar labaad kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu ka dhacay dalka Djibouti 21 Disembar 2014. ergooyinka labada dhinac mar kale ayay isugu soo laabteen bishii Janaayo 2015. hase yeeshee wax wada hadal toos ah ma uusan dhicin. shirkiina waa uu burburay kadib markii la isku khilaafay xubnaha ka soo qaybgalaya shirkaasi iyo fulin la'aanta qodobo hore. Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Somaliland, haatanna waa wakiilka Geeska Afrika ee xarunta Humanitarian Dialogue. waxa uu hogaaminayay ergadii Somaliland ee wadahadaladii London, Ankara iyo wareegii koowaad ee ka dhacay magaalada Istanbul. wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya horta waxay ka bilaabmeen ugu horeeyay wuxuu ahaa shirkii ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku qabtay London February 2012. ilaa 50 dal buu barigaas ugu yeeray oo madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal cid walba leh Afrika iyo Yurub iyo Asia iyo Amerika. dadna halkaas ay arrintu markaa ka soo baxay. madaxweynayaasha markaa barigaas Soomaaliya Axmed Sheekh Shariif iyo Axmed Siilaanyo iyo laba wafdi oo kala hogaaminaya anigu aan la socday Axmed Siilaanyo ayaa ka soo qayb galay hadallo macna halka ka soo jeediyay after 22 sano kadib iyadoo labada geesood marna aanay arag ama aanay wada hadal ayaa shirkaasi ay wada fadhiyeen madasha. dabeedna qodob lixaad ee warmutiyeedkii ka soo baxay shirka ayaa ugu baaqay labada geesood Somaliland iyo Soomaaliya inay arrimahooda iyo mustaqbalkooda ka wada hadlaan. arrimaha keenay bariga ee socdayna waxay ahayd iyadoo argagixisadu dhibaato badan ku haysa mandaqada Soomaalidu ka mid ka tahay. arrimihii badbaadada ayaa ka mid ahaa. marka forces fara badan arrimahaas ay riixayeen laakiin arrinkaas uu ka soo dhex baxay. dabeedna waa kii u wareegay bishii Juun sanadka ergooyin rasmi oo labada geesooda ayaa dabeedna markii ugu horeysay isaqay guddi ka socda Somaliland oo anigu aan horkacay iyo guddi kale oo Soomaaliya oo Cabdi Samad Macalin Maxamuud isna horkacayo wasaaradda khaarijiga Ingiriiska wasiirka Afrika uu martigeliyay. laba qodob baan ka xusi karaa shirka ugu horeeyay labada kooxood isku arkeen oo ka soo baxay. mid wuxuu ahaa in wada hadal la furo oo ay labada geesood ba ogolaadeen. ka kalena wuxuu ahaa sida loo wada hadlayo inay noqoto labadii dhinac ee Soomaaliyeed ee midna Ingiriiska xurriyadda siiyay ka kala qolada kalena xagga Talyaaniga in loo wada hadlo. dabeedna waa loo gudbay Imaaraadka hadana labada madaxweynaha ka soo qayb galeen si adkeeyeen saxiixana wixii markaa Ingiriiska ka soo baxay. halkaas dabeedna arrinkaas maray. dabeedna waxa Xasan Sheekh Maxamuud baa madaxweyne ka noqday Soomaaliya. wuxuu isna soo magacaabay Cabdikariim Xuseen Guuleed oo dhinaca Soomaaliya wafdiga horkacay dhinaca kale anaga sii waday. wadahadalo dooran markaa Turkiga wadahadalka bariga markaa la wareegay lagu galay oo arrimaha maamulka hawadu ka mid yahay oo macaawinooyinka iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo runtii arrimahaas si badan baa laga gaaray. waana kuwa imika shirkan cusubna bilowga ku noqday inkastoo arrimaha aan bariga la fulin. dabeetna waa la kala booday oo 5 sanadood bay wadahadalkaasi lagu kala maqnaa. after 5 sanadood baa imika wadahadaladan weygii hore aynu arkaynay labada geesood ay bilaabmeen oo dalka Djibouti ka furmeen. Cabdikariim Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu hogaaminayay ergadii dawladda Soomaaliya ee ka qayb gashay wadahadaladii dhacay sanadihii 2013 iyo 2014. xilligan waxa uu hogaamiyaa xisbiga Sahan.
waxa ugu weyn aniga aan focus gareynay waxay ahayd maadaama dadku dad dagaalo iyo irdho iyo wax kala tabasho ay jirtay horta inaan niyad wanaag inaan abuurno maxaa yeelay laba qof oo isdishay isma daaweysaanayde marka horta niyad wanaagaas iyo jawi dadku ay ku wada hadli karaan mararka kamida waxaa la joogay qofka Somaliland qof koonfurta Soomaaliya ah inuu maqlo ama arko ee aad u adkay laakiin in soo hor fariisto oo la wada hadlo arrin runtii aad u weyn ayaa loo arkayay natiijada la gaari kara intay rataba haba noqotee dabcan marka wada hadallo la bilaabayana dee lagama bilaabo ama kama bilaaban karto wixii ay ku dhamaan lahayd kama bilaaban karto waxaa loo baahan yahay marka hore in geedaha lagana jaro oo waxyaabaha caqabadaha oo ka soo horeeyay marka hore la zuuliyo si waxa oo meynka oo ugu dambeeyay loo gaaro waxaan aaminsanahay marka muddadii wada hadalladaas aan wadnay oo anigu aan daadihinayay waxyaabo badan oo caqabada oo ka soo horeeyay aan maaragtay runtii u gobol xaarnay inaan ilaa xad niyad wanaag fiican aan samaynay walaalaha reer Somaliland oo wada hadallada nagula jireen runtii muddadii wada hadallada aan wadnay waxaan runtii ku aragnay inay wada hadallada dhabna ka ahaayeen niyad wanaag fiican ay muujinayeen hase yeeshee qodobadii ugu waaweynaa ee ka soo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen kuwo geestarawaab ah oo aan taabanin xudunta khilaafka Professor Afyara Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda Qatar waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada sida dhow ula socda wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland xawbaala inaan horumar laga gaarin yani waan maqlay marar badan oo la isku yimaado inay qoladan aqoonsi baan rabnaa Somaliland ay tiraahdo qoladan kalena ay tiraahdo ma midnimada ku soo noqdo walaalayaal marka saas ayaa doodaasi marka meeshaas ma dhaafto marka markii meesha la isku yimaado cabaar la soo fadhiyo ale si aan dawladda meesha joogta aanan wajiga uga halaynin aan wax oo ma aragtay run asheegin been asheegin amal qodoba la soo qorqoraynta badan oo de wax nuxur oo weyn oo runtii ku jira aysan qadnayn marka laga reebo ya colaadaha la yareeyo iyo waxaan wax iska gudo waxa ka rumooba ay kooban yihiin arrinta jawhariga ah waa arrintaas oo ah in ama la kala baxo ama la isla joogo walabada qolabana ilaa hadda ku badhiiranin ugu yaraan si public ah inay meeshii ay taagnaayeen meel ka duwan ay yimaadaan marka ani kulley waxaan u arkaa marka haddaan qodobkaas aan laga hadlin oo horumar laga samaynin waxa kale oo dhan horumarkoodu waa koobnaanaya wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaan weydiiyey istiraatiijiyada ka dambaysa in laga leexdo qodobada waaweyn walaal istiraatiijiyada oo negotiationka iyo wada hadalkaaba wuxuu dhigayaa inaan marka hore waxa adag aan la abaarin waxa fudud commonka ah ama laga heshiin karo marka hore in la abaaro Soomaalidu waxay tiraahdaa daayda dan xoota ayda soo dhici doontay waxa adag marka dambe loo tagi doonaa marna si gaar ah ama maxaan ku idhaahdaa inta wada hadallada ku jirteen ama maaragtay meelaha ka baxsan wada hadallada markaad isugu timaadeen waxa ugu weyneed u yaboohdeen ama uga tanaasulsheen Somaliland oo u sheegteen maxay ahayd haddii aad laabtiina u furteen marar badan wada hadallada aan qabanaynay waxaa ka horreyn jiray wada hadallo aan rasmi ahayn oo dad gudiyo oo hoose ee siyaabo hoose isku arki jireen soona karkarin jireen waxa ay suurtagal tahay in laga wada hadlo iyo waxa ay suurtagal tahay in iskaga soo dhawaan karo soo karkarin jireen wada hadalkan officialka ah waxaan runtii qaban jirnay marka aan u aragno in wax laga wada hadlo iyo wax la iskaga soo dhawaan karo iyo qodobo laga doodi karaa ay macquul yihiin ayaan samayn jirnay طبعا ده wixii hoos looga wada hadlay iyo wixii hoos loo overgareeyay maadaama aan wax official soo baxay ama la saxiixay aysan ahayn waxa idaacad laga sheegi kara ma aha laakiin waxa xaqiiqo ah anaga dhankanaga dhanka dawladda Soomaaliya mar walba waxay diyaar u ahayd kana go'onayd wax kasta oo walaalaha reer Somaliland ay ku qanci karaan oo aan ka ahayn hala kala tago inay maaragtay ay diyaar u ahayd ayaa jirtay bishii Febraayo ee sanadkan intii uu socday shirkii madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa waxaa kulan aan hore loo sii shaacin yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi
shirkaasi waxa uu wax yar u jirsaday inuu horseedo booqasho ay Somaliland ku tagaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isagu lahaa dhexdhexaadinta u dambeysay ee labada hogaamiye ee ka dhacday magaalada Addis Ababa. hase yeeshee booqashadaasi ugu dambeyn waxaa ku gacan sayray mas'uuliyiinta Somaliland. hase yeeshee waxaa shirkaasi ka dhacay magaalada Addis Ababa uu horseeday qabsoomidda shirki ka furmay magaalada Djibouti 14 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay. wareegga wadahadaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Djibouti 2 toddobaad ka hor ayay labada dhinac ku gaareen qodobo dhowr ah, balse qodobka ugu weyn ee ka soo baxay wadahadaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Djibouti waxa uu ahaa inay labada dhinac ku heshiiyeen inaan caqabad lagu noqonin isdhexgalka aan siyaasadda ahayn sida dhaqanka, waxbarashada, ciyaaraha iyo ganacsiga si loo kobciyo ayay dhaheen nabadda iyo wadahadalka. haddaba maxaa dib u soo nooleeyey wadahadalladan cusub ee ka furmay dalka Djibouti 5 sano kadib? wasiirkii hore arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa ka warramaya. shirkan arrimahan marka wadahadalkan cusub ee Djibouti ka furmay ee labada dhinac u furmay horta wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore kow actors cusub ama wakiilo cusub oo caalamka ka socda ayaa arrintan horta imika wada indiseeda iyo hawsheedaba gacanta ku haya oo Mareykanku ugu mudan yahay imika iyo Itoobiya oo la shaqeynaysa iyo midowga Yurub. Djibouti iyadoo hore ugu jirtay wadahadalkan oo partnership bay qabatay labada Somaliland iyo Soomaaliya. arrimahan Soomaalidana Djibouti khibrad dheer bay u leedahay kuma cusba xagga marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya. marka horta muruqa cusub ee Mareykanku wuxuu soo kordhinayaa qiyaasteeda muruq diblomaasiyadeed oo xoog badan. dhinaca kalena wuxuu Mareykanku la socdaa oo la socda muruq kale xagga dhaqaalaha ah oo imika hay'adihii waaweynaa ee dunida sida World Bank dhaqaalaha adduunku waxay imika diyaarinayaan barnaamij laga soo kabanayo dhaqaale xumadii ka dhacday dadka Soomaaliyeed ku dhacday oo kaabayaasha dhaqaalaha labada dhinacba Somaliland iyo Soomaaliya la doonayay in wax laga qabto. halkaana muruq kale oo dhaqaale ayaa moodaa Mareykanku inuu isna wato oo wadaan. qodobka saddexaad waxa weeye bisayl baa iga muuqda imika labada geesood hogaankooda iyo siday wax u wadaan. dhiirranaan baa iga muuqata iyo waayo-aragnimo laga qaatay wadahadaladii hore iyo casharadii laga bartay iyo arrimihii hirgeli waaya. sidoo kale waxaa kaloo aan ku rabaa wax walba inay ku xidhnaan doonaan arrimaha confidence-ka ama kalsoonida dhisaya ee ay wadahadalka ku bilaabeen. guddiyo gaarana ay imika u sameeyeen oo ama xagga dhaqaalaha leh ama xagga arrimihii laysku hayay ee maamulka wada sare leh ama iskaashi xagga amniga iyo maalgashigaba leh. waxaan isleeyahay arrimahaasi haddii ay si wacan u hirgalaan waxay wax ka tari doonaan in lagu dhiirado arrimo fara badan oo masiiri oo labada geesoodba ka dhexeeya oo aad looga maagi jiray in arrinkaa lagu soo dhawaado ayay keeni karaysaa. maxamed biixi yoonis waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Cumar bartamihii sanadkii 2013 waxaana uu garwadeen ka ahaa guddiga wadahadallada ee Somaliland. waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin wadahadalladan ugu dambeeyey iyo kuwii hore ee uu ka soo qayb galay. waxay ugu muuqataa inay si weyn u kala duwan yihiin wadahadaladii hore ee aanu geli jiray ama kuwii anigu aan hogaaminayay ama kuwii sii horreeyey waxaa inta badan wada hawsha waday dowladda Turkiga. dowladda Turkiguna inteeda badan markay suuqa ay yeedho waxaana siin jirtay state maaragtay maqsina maxafiis ama qolaanu ku shiro annagu baa soo fadhiisan jiray oo labada guddi Soomaaliya iyo Somaliland ka kala socda ayaa wada doodi jiray. ayaguna maqsinakeeda dooda ku bay jiray wada hadallada dhaxna kama ahayn lama dhex fadhiisan jiray. doodana waxay ka gedisan tahay waxaa ahayd dood dad waaweyn oo dowlado waaweyn oo caalamka ah oo Mareykanku ka mid yihiin European Unionku ka mid yihiin dowladda Itoobiya oo regionka ka mid tahay iyo deegaad iyo dad fara badan joogaan. gobashara uu dhigay madaxweynaha dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo halkaa fagaara caalamiya sidii ay ahayn sidii dowladda hadallada adduunka loogu qabtay qolo kastaana qadiyadeeda halkaa ka sheegtay. waxay iskaga mid yihiin baan oran karaa waxyaabaha aad looga hadlay waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii hore aanu ugu heshiinay ee la fulin waayo oo dowladda Somaliland ay codsatay
oo ay tirida waxyaabihii hore oo dhan lama fulin si wadahadalla midha u dhala noqdaan oo aanu dee lis aamino oo kalsoonidii soo noqoto waxaanu doonaynaa in la fuliyo wadahadaladii hore loogu wada hadlay ee heshiiska lagu gaaray ee madaxweynayaashii dowladu wada seexdeen ee ilaa iminka aan la fulin ama lala wareegay sida awood oo kale marka taana iskaga mid bahaano dee arrimihii horubaa dib loogu noqday laakiin fagaaruhu hade fagaara loo dhan yahay beesha caalamkeena joogto aad iyo aad ba loo dhegeysanay qadiyadooda jabuuti markii la isugu tegay labada dhinac waxaa ka muuqday diyaargarow la-aan hadalla taagtaagan qodobo maaragtay dadku islahayn way fudud yihiin oo adkaatay in laga gudbo maxay ku dhacday horta siday u muuqato run ahaantii an waxaan isleeyahay balse de waa guul bay labada gruuba u tahay in la wada hadlo la isu yimaado si dowladda jabuutina karaamo iyo sharaf bay ka heshay inay dad walaalaan oo soomaali ah oo muddo badan kala maqnaa mar labaad isugu yeedho oo weliba doorkana uu kasii gedisaanaado in kuwii hore ee ay qabatay ama lagu qaban jiray turkiga ay ka gedisnaato dee beesha caalamka fadhido marka horta waxaan isleeyahay waa horumar iyo dee maaragtay dariiq cusub oo bilaabay hase yeeshee dee runta oo diyaargarow badani dee ma jirin waktigoo tayd ahaa iyadoo dunidii dee COVID-19 wixii jiray oo dee dadkiiba degdeg usoo baxayeen iyo iyadoo maaragtay aan dee runtii wakti badan aan labada gruub midna helin dee say aad iyo aad ba lasugu sii wada diyaariyo hase yeeshee dee dabcan waxaan isleeyahay bilowgii buu ahaa dabcan hadallada taagtaagana looma baahna run ahaantii oo dee marka la wada hadlayo waa in la iska ilaaliya hadalla taagtaagan iyo dee hadalla afma keeniyo hadalla lagu kala tegayo laakiin waxaan isleeyahay dee ta dambe iminka waktiga la haysto maanta 45 cisho ka loo qabtay ayagoo wada diyaara ayagoo degan ayagoo deris ka qaatay tan iminka ay ugu horeysay oo dee waxyaabo badan ay ka barteen oo aan isleeyahay dee qolo kastaaba dib bay maaragtay dee isu evaluation ugu samayn karta isu eegi kartaa maxaa suuragalay sida ahayd marka ayagoo dee kasoo gudbay caqabadihii yara adkaa halkan kusoo marayna ta dambe si fiican la isugu iman doono aanan dee qabaynaysa dambe kasii fiicnaan doonto insha allah aad dee beesha caalamkuna uga iman doonto oo ay noqon doonto dee international forum weyn oo aad iyo aad dee loogu wada hadlo arrimaha masiiriga ee waaweyn laga wada hadlo mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee ay wada hadaladani mar kale dib ugu soo noolaadeen ayaa ah doorka isa soo taraya ee beesha caalamka ee xilligan iyo isbedelada gobolka iyo kuwa caalamka ka socda wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa ka waramaya saamaynta isbedelada gobolka iyo kuwa caalamka ee wada hadaladan aynu ka hadalno jawiga ay wada hadaladan ku dhacayaan iyo xilliga ay dhacayaan hadday yihiin isbedelada caalamiga iyo kuwa gobolkaba maxaad ka dhigay qodobkaas waxaan arkaa qodob aad iyo aad muhiim u ah horta mowqifka guud ee caalamku arrinkan Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhaxeeya uu ka leeyahay horena u caddeeyay ilaa iminkana taagan waxa weeye Soomaalidu iyagu ha wada hadlaan mustaqbalkooda iyo dawladooda iyagu ha ka wada farsadaan caalamkuna wixii gacan ay ka geysanaya ha ka geysto horta barta halka ay ka bilaabatay ilaa iminkana ay meeraysanaysa horta waxa weeye waa halkaa hase yeeshee labadii gooree la isku dayay arrinkan in wax laga qabto mid waa markaa hore 2012 aan ka hadlay ingiriiska hormood ka ahaa prime minister Cameron weliba oo xafiiskiisa ka maamulayay kontakista Soomaalida arrintoodii ku dhex jirtay waxa ahayd arrin la yiraahdo badeed ama piracy oo adduunka markaa dhaqaalaha adduunka culays weyn ku haysay oo marin biyoodka badda Hindiya iyo gacanka cadmeed iyo dhulka ay Soomaalidu degto guud ahaanba culays weyn ka soo wajahay dhaqaalaha caalamka dowladda Ingiriiskuna ay khasaaro fara badan arrintaa kala kulantay taasaa keentay Dr. Prime Ministerkii UK inay focus foreign policy ama xagga khaarijiga ka dhigtaan arrimaha Soomaalida halkaasay markaa kontaktiskaas markaa ku dhex jiray mid gaar waa maahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalkooda arrintii dee waa laga bogsaday oo burcadbadeedii marka khatari ay caalamka ku hayeen way yaraadeen dabeedna focuskii caalamka galbeedku arrinkan waayey isla saas uu yaraaday taymka socotay ee 2012 imika wiigii hore wada hadalkan ka bilfarmay Djibouti iyo kooxaha ereyga ama hormoodka ka waxaan isleeyahay waxa iyana la xiriirda amniyada caalamku siinaya waxa weeye arrimaha doodaha cusub ee isku xirka geeska Afrika
laga wado uu hogaamiyaha cusub ee Ethiopia uu arrintaa hormoodka ka yahay iyo siyaasad loo yaqaano siyaasadda badda ah oo xagga bacmushtarka iyo amniga iyo isku socodkaba muhiimad gaara u leh adduunka oo ay weliba labada daraf kala fadhiyaan wadamada qarbiga ama reer galbeedka iyo China oo dhinaca kale iyo xulufadiisa ah marka arrimahaasay maantana arrintii Somaliland iyo Soomaaliya ay ku dhex jirtaa waxaa muhiim ah in la caddeeyo wadahadallada Somaliland marna ma ahayn topic ama arrin weyn oo caalamku u bareerayo inuu si gaar u handalgarayo had iyo jeer arrinta Somaliland iyo Soomaaliya waxay marti u tahay dana waaweyn oo caalamku mandaqadan ay joogaan ay kala yihiin ayay ku dhex jirtaa marka maanta tay soo dhex gashay waa arrinta geeska Afrika ka socotay integrationka iyo isku keenida iyo isku socodkaba leh iyo taa kale ee ka weyn leeyahay kale weyn ee badda cas iyo siyaasadiisa iyo bacmushtarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisa halkaasay markaa maslaxadda Somaliland iyo Soomaaliya arrimahooda dhangalintoodu ay ka soo galaysaa caalamka waqtigan imika ku jiro haddaba waxaa jira fikrado cusub oo ay ka fakarayaan dawlado waaweyn oo leh miisaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed kuwaasi oo ku soo biiray wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland dadka qaarna ay aaminsan yihiin inay isku soo dhoweyn karaan labada dhinac haddaba sidee ayaa labada dhinac uga miro dhalin karaan wadahadalladan intee in leeg ayaa labada dhinac ay diyaar u yihiin inay jilbaha aastaan oo ay ka miro dhaliyaan wadahadalladan intee in leeg ayaa mas'uuliyiinta labada dhinac ay ogolaan doonaan inay wadahadalladan ka qayb qaataan hogaamiyaasha kala duwan ee dhinacyada sida kuwa siyaasadda baarlamaanada gobollada mucaaradka iyo kuwa ugu muhiimsan oo ah dadka shacabka si go'aamada la gaarayaa ay taageero dhinacyo badan leh u yeeshaan isla markaana aysan u noqonin kuwo la cimri ah mas'uuliyiinta iyo dhinacyada xilligan kulmaya fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino channelkan haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid